Cudurka dhiig-karka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo hypertension waa xaalad caafimaad oo khatar ah. Waana marka cadaadiska dhiiggu uu si joogto ah uga bato heerkii caadiga ahaa ee jirka. Haddii aanan la daaweynin, dhiig-karku wuxuu sababi karaa wadne istaag degdeg ah, maskaxda oo dhaawac gaaro ama dhiig ku furmo, kelyaha oo shaqadooda yareeya ama lumiya. Maxaa sababa dhiig-karka? Waxyaabaha sababa dhiig-karka waxaa ka mid ah cunista milix ama cusbo aad u badan, walwal, stress iyo culays maskaxeed oo joogto ah, jimicsi la'aan ama fadhiga badan, cabista sigaarka, cudurka sokorowga, gaar ahaan haddii aanan si fiican loo xakamayn cabirka sokorta. Sidee la isaga ilaalin karaa loogana hortagi karaa? Cunto caafimaad leh cun, gaar ahaan mid aan saliid iyo milix ama cusbo badan lahayn. Samee jimicsi maalin kasta ugu yaraan 30 daqiiqo. Iska ilaali walwalka, stresska, iskuna day nasasho iyo hurdo fiican inaad hesho. Jooji sigaarka iyo cabista maandooriyaha. Xakamee oo la soco sonkortaada haddii aad qabto cudurka sokorta. Dhiig-karku wuu kaa qarsoomi karaa sannado badan, laakiin dhaawiciisu waa degdeg. Badbaadi noloshaada adigoo la soconayo ama cabirayo cadaadiska dhiiggaaga si joogto ah. Follow garee boggeena caafimaad si aad u hesho talooyin wacyigelin ah oo ku habboon bulshada Soomaaliyeed. Ama booqo linkiga website-keena borofaylkeena saaran si aad u hesho maqaal dhammaystiran oo ku saabsan cudurka dhiig-karka.